madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Davos ee dalka Switzerland u jooga ka qaybgalka shirweynaha dhaqaalaha adduunka ayaa ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay arrimo la xiriira Soomaaliya sida horumarka Soomaaliya kobaca dhaqaalaha qorshayaasha dawladda ee ku aadan horumarka waara iyadoo sare loo qaaday iskaashiga Soomaaliya ay la wadaagto dalalka caalamka intiisa kale. Thank you very much. It is a pleasure and honor to be here in Davos in general and providing me. aad baad u mahadsan tahay farxad ayay ii tahay inaan joogo magaaladan Davos guud ahaan tani waxay fursad ii siinaysaa inaan dunida la wadaagno khibrad ahaan horumarka Soomaaliya ay ku talaabsanayso waana fursad muhiim ah. dabcan Soomaaliya waa wadan soo maray maraaxil kala duwan oo adag balse si dhaqsi leh ayuu dalka u soo kabsanaya. dagaaladii sokeeye waa ay dhamaadeen marxaladii ku meel gaarka ahaydna dalka waa uu ka gudbay oo waa ay dhamaatay. hadda waxaanu nahay wadan si dhammaystiran dunida ay u aqoonsan tahay. waxaa jira dagaalo lagula jiro kooxaha argagixisada. Soomaaliya waa meel ay ku sugan yihiin argagixiso. labadii sano ee ugu dambeysayna waxaanu la dagaalanay argagixisadaasi. dhul aad u fara badan oo dalka kamid ah oo ballaaran ayaa laga xoreeyay isla mar ahaantaana waxaanu abuurnay rajo ah in bulshada Soomaaliyeed ay iska dulqaadi karaan argagixisada. dabcan waxaanu aad uga mahad celinaynaa cid kasta oo la dagaalanka argagixisada nagu gacan siisay. ma ahan oo kaliya meelaha aanu xoogga saarnay dhinaca ammaanka dhanka dhaqaalaha waxaanu diiradda saarnay dhismaha hanaanka dawladnimo iyadoo laga gudbay caqabado badan oo aan wajahaynay. taasina waa wax aad loogu farxo. dhaqaalaha Soomaaliya waa uu soo kobcaya oo horumar ballaaran ayaa ka jira imika. dhaqaalahana waa mid inta badan ay hormuudi lafdhabarba u yihiin ganacsatada sida gaarka ah ama ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay. waana horumar dhaqaale oo cilmi ku dhisan. sidaasi darteed ganacsiga gaarka ah Soomaaliya ayaa mid kobcayay sanadihii ugu dambeeyay. dawladda Soomaaliya waxa ay sameysay sharciyo iyo xeerar muhiim ah kuwaasi oo abuuraya wada shaqayn wanaagsan oo markaas isku xiraya hay'adaha gaarka iyo kuwa caalamiga hay'adaha gudaha iyo kuwa caalamiga si Soomaaliya indhaha caalamka loogu soo jeediyo. sidaasi ayuu dalka hore ugu socdaa. hadda markii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku nool miyiga fog waxa ay heleen oo ay ka faa'iideysanayaan adeegyo casri ah. waxaanu kordhinay doorkii hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta khayraadka aadamiga ee dalka. maanta waxaanu dib u soo noolaynaynaa hay'adihii waxbarashada uu dalka lahaa. sidaa darteed dalka hore ayuu u dhaqaaqay. weli waxaa jira caqabado sida kaabayaasha dhaqaalaha. qaybo kamid ah amniga dalka ma ahan sidii aanu rabnay inaan aragno isagoo ah. laakiin waxaan dhihi karnaa inta badan dalka waxaa ka jira xaalad xasilooni ah. dhismaha hay'adaha dawladda ayaa sidoo kale iyaguna ah caqabad meesheedii ah. dib u heshiisiinta waa ay barbar socotaa. marka waxaanu leenahay dhammaan caqabadaha ay ka gudbaan dawladaha soo koraya oo idin. labadii sano ee ugu dambeysay horumar ballaaran ayaanu gaarnay. GDP-ga dalka ayaa kobcayay wuxuuna gaaray 4% sanad kasta. waxaanu ka baxnay deemihii Soomaaliya lagu lahaa oo laga cafiyay iyadoo taageero laga helayo saaxiibada caalamiga ah sida hay'adda IMF ta lacagta adduunka, bangiga adduunka iyo dawladaha ku bahoobay midowga Yurub oo iyagu deemihii naga cafiyay. waxaa jiray xayiraado saarnaa Soomaaliya muddadii lagu guda jiray marxaladihii dalka adkaa oo soo maray. waana la dhameeyay dhammaan cunaqabataynadaasi iyo deymihii dalka lagu lahaa. hadda Soomaaliya waa wadan caadi ah oo doorkiisa ka ciyaara horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax laga weydiiyay su'aalo la xiriira waxyaabaha Soomaaliya ka maqan oo ay u baahan tahay in laga kaabo. Many partners and many people in the world, Somalia looks in the lenses of security only, since the terrorists were there for a long time, but the reality is different.
dunida inta badan waxa ay Soomaaliya ka fiirinayaan oo kaliya dhanka ammaanka maadaama in muddaha wadanka ay ku sugnaayeen kooxo argagixisa laakiinse xaqiiqda taasi waa ay ka duwan tahay hadda waxaanu rabnaa in dunida il gaar ay ku eegto horumarka dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya marka dhaqaalaha laga hadlayo waxa muhiim ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha tamarta waa muhiim horumarinta kheyraadka aadamiga sidoo kale waa muhiimad gaar ah dhammaan arimahani ayaa ah waxyaabaha Soomaaliya ay diiradda saarayso waana wax wada socda dhaqaalaha ayaana laf dhabar u ah boqolkiiba 70 bulshada Soomaaliyeed waa dad dhalinyaro ah bal qiyaas dhalinyarada inta la eego bulshada muhiim u ah hadii aysan helin fursado shaqo abuur ah waxa suurtagal ah in dhibaatada ay duufsato ay qayb ka noqdaan waxaan isku dayaynaa inaan fursado u abuurno bulshada gaar ahaan dhalinyarada si kaalintooda uga qaataan dib u dhiska iyo horumarka ballaaran ee imikadan ka socda dalka sidaas darteed waxyaabaha Soomaaliya muhiimka u ah waxa weeye in laga saacido horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta kheyraadka aadamiga kaabayaasha ma ahan oo kaliya saboolnimada wadooyinka iyo airportka sidoo kale waxa qayb ka ah dhanka tamarta waana muhiim hadda caqabadaha ugu waaweyn ee taagan waa tamarta Soomaaliya waxa ay leedahay fursad kheyraad dabiici ah balse ma jirto awood dhaqaale oo ku filan oo ay maalgashi ku samaysato loogana faa'iideysto kheyraadka dabiiciga ee dalka uu leeyahay sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa la weydiiyay hadii ay jiraan nidaamyo la xiriira isku xirka dadka hal abuurka u leh bulshada si kaalintooda uga qaataan horumarka Soomaaliya ka jira Yes, there are a lot of private organizations that work in that banks, other institutions, but the major one that we want to be the hub ha waxa jira ururo badan oo si gaar ah loo leeyahay kuwaas oo ka shaqeeya bangiyada iyo hay'adaha kale ee dalka laakiin waxyaabaha ugu weyn ee aanu doonayno habkii loo maareyn lahaa in loo maro ayaa ah bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya kaasi oo ah mid shaqeeya hadda waxaana abuura fursado bulshada ay u baahan yihiin waxaanu rabnaa ayaa ah in dunidu ay diiradda saarto taageerada bangigaasi si uu u daboolo baahiyaha bulshada si shaqo abuur ay u helaan iyo adeegyada kale ee muhiimka bulshada Soomaaliyeed dhanka kale xaaladaha bani aadamnimada ayaa ah kuwa in muddo Soomaaliya saameentooda lahaa iyo la tacaalidooda balse waxyaabaha imika aanu ka doonayno dunida ayaa ah in diiradda la saaro sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada wax soo saarka sida kheyraadka beeraha iyo dhaqaalaha buluuga ah dalka intiisa badan hadda waxa laga xureeyay kooxaha qawaarishta marka wax soo saar badan ayuu dalka heli lahaa hadii bangiga horumarinta Soomaaliya uu helo taageero waxa uu dhexaad u noqon doona fududeynta howlahaasi oo idil oo ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga guushayna waxa ay ku xiran tahay isku xirka howlahaasi oo idil aanu soo sheegnay iyadoo laga faa'iideysanayo awoodda kheyraadka aadamiga ee dhalinyarada xitaa hadii horumar la sameeyo oo horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaashii la sameeyaba hadii bulshada aan la jeheynin oo wacyigelin loo sameyn dhalinyarada shaqo abuur aan loo sameynin waxa suurtagal ah in caqabadu ay taagnaato So I think the both sides, if we get together and move towards that direction, it will change the challenges the world is facing today.